shir jaraa'id oo ay maanta si kala gooni ah ugu qabteen magaalada Gaalkacyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo waxgaradka maamulka Galmudug ayaa waxay kaga soo horjeesteen hadalkii dhawaan uu madaxweynaha Galmudug Maxamed Axmed Caalin ku sheegay in aysan Galmudug ka qayb gali doonin shirka Istanbul looga furmay Soomaalida isla markaasina shirkaasi ay ka qayb galayaan kooxaha xagjiriina xubnahani golaha wasiirada ee uu shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug isla markaasina shir ku qaatay magaalada Gaalkacyo ayaa tilmaamay in shirkaasi Galmudug ay ka qayb galayso habeenkii xalay tahaana ay gaareen xubno ka socda golaha wasiirada isla markaasina danaha shacabka Soomaaliyeed aan loo joojin doonin rabitaanka shakhsi waxay golaha wasiirada ansixiyeen iskuna raaceen in dowlad goboleedka Galmudug shirkaas oo si official uga qayb gali doono hadii ilaahay shirkaas waxaan uga qayb gali doonaa intaan ka hubno heer golaha wasiirada ayaa tagi doona wayna ka qayb galeynaa mana qaadici doona wax kasta oo dowladda Turkiga ay Soomaaliya u qabanaysana waan soo dhaweynaynaa dowladda Turkiga oo walaalaheena waxaan uga mahad celinaynaa sida sharaf kale oo ay ugu soo gurmatay Soomaaliya markii abaarta baan ku dhacday iyo burburku iyo dagaalada sokeeye oo ay u soo garab istaagtay dhinaca kale xubnaha waxgaradka oo ay kamid ahaayeen salaadiin ay kamid yihiin Suldaan Muxiidiin Cilmi Fagaas iyo Suldaan Cabdullaahi Ducaale Kaahiya ayaa waxa ay sheegeen in shirka Istanbul ay ka qayb galayaan isla markaasina uu yahay mid dan u ah shacabka Soomaaliyeed codka odayaasha maamulka Galmudug oday dhaqameedka ano codkooda ku hadlaya waxaan soo dhaweynayaa aan diyaarna u nahay in laga qayb galo shirka Turkiga u qabanayo ummadda Soomaaliyeed oo aan u qaadanayno inuu yahay dan ummadda Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magaca odayaasha golaha dhaqanka waxaan soo dhaweynayaa shirka Turkiga looga qayb galayo oo danaha Soomaaliyeed lagu qabanayo laguna badbaadinayo si kastaba ha ahaatee hadalkani ka soo yeeray xubnahani ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaan madaxweynaha Galmudug Maxamed Axmed Caalin oo ku sugan caasimadda dalkaasi Itoobiya ee Addis Ababa isaga iyo madaxweynaha Puntland ay sheegeen in shirka Istanbul ay ka qayb galayaan xubno xagjiriina isla mar ahaantaasna labadaas maamul aysan ka qayb gali doonin Problem Maxamed Universal TV Gaalkacyo